بسم الله magacay waa Dr. Faisal Maxamed Maxamuud cudurrada guud ee carruurta takhasuskiisu yahay ka howlgala isbitaalka Sugane waxaan doonayaa inaan si kooban uga hadlo cudurka la yiraahdo kaduudiye Soomaalidu u taqaano laakiin caalamka looga yaqaano chikungunya virus cudurka looga yaqaano cudurkaas ayaan rabaa si kooban inaan uga hadlo iyo Soomaalida briefska ay ka qabaan cudurkaas hadda waxa weeyaan waa cudur hadda magaalada wadanka dib ugu soo noqday waa cudur halis badan ku haya bulshada nugul xawaair aan ka taabto cudurkaas marka asalkiisu waxa weeyaan cudur ka soo bilowday East Africa Tanzania wastigeeda qaybteeda koonfureed konton iyo labadii laga helay uuna ku faafay caalamka oo ilaa 60 dal ayaa la ribood gareeyay oo caalamka inuu ku faafay cudurkaas marka hadda inaka fara baanba inuu haya marka cudurkaas waxa weeyaan wuxuu leeyahay qaab looga hortago leeyahay inuu qofka ku dhicin kale qof hadii lagu helo inuu qof kale uu ku dhicin waxa looga hortagi karaa in markanaca qofka uu galo qaba cudurkaasna kanaacada faafisana waa dhadig waxaan la helaa maalinkii bas la helaa habeenkii lama helo habeenkii waxa uu qofku socon karaa dadkiisu la dhaqmi karaa laakiin maalinkii qofka laga helo chikungunya virus ama kaduudiye virus cudurka loo yaqaan waa inuu galaa markanaacadaas maalinka inuu ku jiro weeyaan oo iska ilaaliya qaniyada kanaacada suusan ugu faafinin dad kale cudurka marka wuxuu leeyahay wax la yiraahdo supportive care macnaha in qofkan maalmaha u horeysa qandhada zaidka ah hayso in la siiyo barkiin brasmalka ahaayo maxaan ku raad loo qabeeyo qabiis badan uu sameeyo kala hadii biyo cabka uu aad u farabadiyo maxaan ku raad cabitaanada u fiican cudurkan ee ka qayb qaadan kara inuu qofkii dirbo uu ka kaco difaaciisa jirka xoog u yeeli karo waxa kamid ah cabitaanka qumbaha oo kale qumbaha inta la jibiyo biyaha ku dhex jira dabiiciga geedka kala soo dhacay horta wax ugu fiican weeyaan iyo caleenta cagaaran cabitaanada kale oo dhanna waa la siin karaa qofka maxaan ku raadayay way u fiican tahay cunooyinka culculusna qofka waa laga ilaalinayaa sida hilibka oo kale iyo maxaan ku raadayay cunooyinka bulky foodska loo yaqaan hilibka iyo maxaan ku raadayay baastada bariiska kale cunooyinka culculus waa laga ilaalinayaa mishaarida iyo cunooyinka fudfudna waa la siinayaa qofka waxay ka keenaysaa in qofkii uu macnaha durbadii uu ka soo kabto cudurkii haddii marka cunugga qofkaas uu xanuunkaas laba maalmood ilaa 3 maalmood hadduu sii dhaafo oo xanuunkii uu qofkii sii hayo oo si zaid oo ugu sii dhagan yahay waxa muhiim ah in loo gudbiyo xarun caafimaad si wax looga qabto loola tacaalaha secondary infections waxa la dhaho keeni kara oo ka baxsan viruska ka baxsan ayuu keeni kara cudurkii in lagala tacaalo macnaha waxa kale oo macnaha rabayna meesha aan ka sii gudbiyo cudurkan waxa u fiican qofka dawada u noqon kara waa resting wax la yiraahdo inuu nasiino qofkii uu sameeyo waa inuu nastaa maxaan ku raadayay uu san dhaqaaqa badanin restingkaas wuxuu ka qayb qaadanayaa joint painkii xanuunkii ku dhacay kala goosyada in ay relief helo oo dib ugu soo kabto hadii uu laakiin socodka uu sii badiyo oo dhaqaaqa sii badiyo xanuunkii kala goosyada hayay uu ku sii badan karaa waxa kale cudurkan isna oo maxaan ku raadayay oo safe u ah oo maxaan ku raadayay u fiican qofkaas in uu helo maxaan ku raadayay diet oo balance ah cunno ku filan oo dhameystiran fikirka marka dadka ay ka qabaan cudurkan chikungunya virus waxa weeye fikir qaldan waay meesha inuu ka baxo weeyaan chikungunya virus waa cudur jira oo cudur dadka ku dhaca waa cudur laga bogsan karo waa cudur dawana leh oo la daweyn karo haddii qofku uu ka baxo xilliga loogu talagalay waxa kale cudurka qofka qaba lagu garan karaa macnaha inuu qandho zaid uu leeyahay kala goysida aad inuu xanuunayaan maxaan ku raadayay madax xanuun zaid inuu laba inuu leeyahay in maxaan ku raadayay qofkii uu rash finan iyo waxa ka subxaan cuncun iyo ku dad qaar uu ku reebi karo waa calaamadaha lagu garto cudurkan waxa kale oo cudurkan lagu baaritaan buu leeyahay cudurkan loogu talagalay oo lagu kala saaray inuu yahay chikungunya virus iyo inuusan ahayn waxa weyn baaritaankaasi qalab la yiraahdo ELISA ayaa lagu baaraa serological iyo virological labadaas midkood ayaa laga eegaa